Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataa janalka Mohamed Buhari. Muuqaalkani waxaan rabaa inaan isdul istaago muhiimadda akhriska. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون. Akhriska waxyaabaha kobciya caqliga waxaa kaloo lagu tilmaamaa qofka oo iska durkiya waxgarasho la'aanta. Qofka ka akhris badan uu ka ogaal badan yahay. Haddii labadiina su'aal isku wada mid ah la idiin weydiiyo jawaabta aad kala bixinaysaan way kala duwan tahay. Qofka wax akhriskiisu badan yahay waxa uu isku dayaa inuu faham dheer yahay jawaabta kaaga dhigo, halka qofka aanan waxba akhrin kaliya uu abaarayo jawaabta. Mufakirkii Faransiiska ah ee Frontera ayaa mar la weydiiyay hogaamin doona jinsiga aadanaha. Waxa uu ku jawaabay kuwooda wax akhriya. Sidoo kale mahmaha ayaa jirta oranaysa akhristayaasha maanta waa hogaamiyaasha berito. Akhriska faa'iidada uu leeyahay waxaa ka mid ah qofka wax akhriya waxa uu noolaanayaa nolol ka dheer inta loogu talagalay. Hadda waxay isweydiinaysaa oo sidee marka uu noolaanayaa? Waxaan jawaabta ka dhex heli doonaa hadalkan. Cabbaas Caqad ayaa mar lagu yiri wax akhris badnida. Waxa uu ku jawaabay waxaan leeyahay hal nolol kaliya inaan noolaado iguma filna. Nololkani waxa uu la jeedaa nolol dheer inaan noolaado ayaan rabaa anigoo noloshaasi akhriska ku doonaya. Waxaa la soo wariyay Xasan Lulu Imaam Axmed ibn Xambal saaxiibkiisii ayaa yiri 40 sano maanan saaxanin ilaa laabteeda waxa ahaaday kitaab. Haddii aad dareentid muhiimadda wax akhriska uu noloshaada u leeyahay waqtigaaga oo dhan waxaad gelin lahayd wax akhriska. Waxaan ku soo gunaanadayaa murti kooban oo aan ka iri wax akhriska. Waxayna ku bilaabanaysaa sida tan. Akhriska waxa uu kobciyaa maskaxda, wuxuuna ka shaqaysiyaa caqliga. Caqliga waxa uu bilaabaa fikir, adiguna waxaad dareentaa inuu halaabuu fikir kuugu dhashay. Waad ku mahadsan tahay dhegeysiga muuqaalkani. Haddii aad ku cusub tahay fadlan janalkani subscribe saar. Haddii muuqaalkan aad ka heshay like saar. Sidoo kale ha ilaawin inaad la wadaagto asxaabtaada. تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيز.